maxaad ka taqaanaa saaxirka weyn ee dalka hindiya ee aada looga dambeeyo ama dadka hindiya ay caabudaan? ninkani wuxuu cabayaa ku dhowaad 20 suuq oo biyaa isagoo daqiiqadaha yarba u baahanaya muraaxad ama wax uu naqas ku qaato. daqiiqadaha yarna waxaa la soo dhigayaa muraaxado waaweyn oo hareeraha lagaga furayo si uu naqas u qaato oo afka uga dhalo beed dahaba. ninkani saaxirka dalka hindiya waa in aada uga caanaa. ninkan kamaradu waxay qabteen 2003 isagoo afka ka dhalaya ama afka ka soo saaraya beed dahaba, ama isla daqiiqada uu gacanta wareejiyo gacantiisu uu soo saarayso dahab silsilad dahaba. ninkani waa in aada dalka hindiya looga dambeeyo ama ay dadku caabudaan, kaasoo loo keenaya xataa dadka curyaamiinta ah, isla markaana uu istaagayo qofka loo keeno marka uu lugta ka dharbaaxo ama uu lugtiisa taabto. odaygani waa yaaban yahay laakiin ninkani waa nin aad iyo aad dalka hindiya ay u caabudaan dadka ku nool badanaa. gacanta uu kor u qaado ama gacantiisa uu wareejiyo wuxuu kasoo saaraya waa dahab. dadka hindida waa dad caabuda oo isaga saf ugu jira si uu dahab u siiyo ama uu lacag u siiyo. dadku waxay u keenaan bushqado ku jiro dahab yari ama lacag, isagoo uga dhigayaa intaa u keensadeen dhibilaabkeed. deedna dadka hindidii dhani ku dhowaad milyan wadada caabuda oo isaga saf ugu jira oo isaga ka barakaysanaya, lugaha ka dhunkanaya, lugahooyiisa hoos jooga. ninkani waa nin aada uga caan ah dalka hindiya, isagoo dadku saf mar waliba ugu jiraan. ninkani sida wuxuu u noolyahay waa boqorada hindida, booliska hindiga ama kuwa filmiga yeeriya. sida waxay markuu wadada marayo waxa loo gelbiyaa sida boqorka oo kale, waayo dadku wadada caabuda. ninkani laakiin 1926 wuxuu ku dhashay tuulo ka mid ah dalka hindiya, isagoo shaashadaha soo galay ama saaxirnimadiisa la ogaaday 1960 isagoo lagu arkay isagoo afka beed ka soo saaraya ama afka beed ka dhalaya. beedkaas wiskada marka la baaray dahab rasmi noqday, balse aad baa dadku ninkan u soo jiitay, isagoo dadku saf u soo galayaan, dadku u bushqado u keenayaan dahab iyo ku jiro lacag, kaasoo haddana uga dhigaya intii loo keenay in ka badan. adduunka nin loo walay maxaa rabti ku laaban wax ka yaabiyo in badarkii. hindidu waxay arki jirnay lo iyo ari iyo waxay caabudaan. iminkana barnaamijku wuxuu daran yahay ninkay caabudaan dalka hindida, isagoo markuu dhintay 2008 oo kasoo qayb galeen waxa diin ka jirta dalka hindiya oo dhan. balse ninkan midkiisa ma ahayn nin la gubo midkiisa sida hindidu badanaa midkiisa way gubaan, laakiin ninkan midkiisii lama gubin lamana aasin, waayo dadka hindida ama ku dhowaad 1 milyan oo qof ayaa ninkan caabudi jiray oo saf u soo geli jiray. balse maalintii inuu baktiyey waxaa soo buuxdhaafiyey taasidiisii ku dhowaad 3 milyan oo qof, kaasoo loo diiday in la gubo ama meel kale la geeyo maadaama la caabudayay uu ahaa nin aada loogu xiran yahay. balse shaashadu waxay qabatay ninkani isagoo naagtan siinaya dharka, balse gacantiisa wuxuu ku haystay dahab isagoo qarinaya oo rabaa sidii uu kusoo saari jiray damaajkii uu kusoo saaro dahabka. laakiin aakhir maxaa dhacay? naagtii wuxuu u dhigay dahabkii hadiyad. laakiin saxarnimada ama sixirka waa wax la barto.